السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالك كسود هذا قناة كيغا امراس. ما أنت وحان روا إنان كهضلو برنامج يرو كسابسان أريمها سوماليلان يا سوماليا ومالمهان شديد يفرتن كي ساعدات إلى صورة في أي سوشيال ميديا إذا عذاب قاركود أي ورهاين وحان روا إنان وحير كدو هي قرات كيغا oo ilaahay iga siiyey. midda koowaad maxaa farqi ah oo u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya iyo Rwanda meesha hadda uu ka taliyo Paul Kagame. Rwanda waa ogtihiin waxaa ka dhacay wax aad u foolxun, balse maanta wax ay ku naaloonayso oo ay haysato waad ujeedaan. wax ma ahan la iska indhitiri karo, wax ma ahan ee aan muuqanin. waa dad islaayay haddana maanta heshiis ah. qoladii laga awooda badnaa ee la laayay ee si xun loo galay ayaa waxay sameeyeen dulqaad ayagoo dhahay dhibkii na gaarsiiseen waaba na gaarsiiseene kii anaga aydin gaarsiinana waa u dhacay, bal arrintan sidee ugu tashanaa oo ugu baxna. maanta ujeedaan waxay ku naaloonaysaa nabad iyo baraare, waxayna hiigsanaysaa caalamka intiisa kale. balse anaga oo Soomaali ah maxaa inagu dhacay? Somaliland dhibaata loo geystay, xasuuq baa ka dhacay, waxaa laayay dowlad markaasi u arkaysay in ay ku saxan tahay waxay samaynayso, laakiin ahayd keligii talis aan meelna loogu soo gamban. wixii dhacay qabiil ma samayn, dad gooni ah ma samayn, talis markaa jira ayaa arrintaasi sameeyey. balse maanta sidee looga gudbi karaa? sideen uga bixi karnaa arrintan? marka ugu horeyso waa in aan ka fogaanaa waxa la yiraahdo qabiil. qabiilku waa wax ugu horeeya ee anaga dhibaatada noo geysanayo. dadku maanta 90% qabiila maskaxdooda ka buuxa. ma la heshiin kartid. mar walba markaad tiraahdo waxbaa dhacay, dhibaatadaasaa dhacday, sidee loogu soo noqdaa? waxaa lagu leeyahay dhibaatadaasaana loo geystay, dhibkaana dhacay, waxaan rabnaa inaan ka bogsoono. waa ogtihiin Jarmalka waxay ka dhacay bari iyo koonfur, dhibaatada la isku geystay. balse maanta maxay ku naaloonaysaa? Jarmalku waa waddanka ugu dhaqaalaha badan ee dalka Yurub. darbigii dheeraa waa la jabshay, waxaa lagu bedelay nabad 1994. innagii oo Soomaali ah, weliba ah dad muslim sheegta, oo haddana aanan haysanin diimo kale ee nagu dhex jira.
waxaan u heshiin la'ana soo ma ku fakartay in ay tahay qabiil? ma ku fakartay in ay tahay sadbursi? ma ku fakartay in aan la kala roonayn? taas ma ku fakartay? waxaa loo baahan yahay in ummaddu heshiiso. waxaa loo baahan yahay in la isku soo dhawaado. maanta waxaa haysanaa intaasoo madaxweyne ah. waddankan aan ku noolnahay mithaal ahaan haddaa idinkugu soo qaado, federalism waa ka jiraa, laakiin federalismkiisa ma ahan kan qurunka ah ee soomaaliya ka jiro. jarmalka federalism waa ka jiraa, laakiin nabad ay ku nool yihiin oo ujeeda. inagoo hal dad ah, hal diin haysana, maxaa inoo keenay in aan 24/7 aan iska cayno social media, aan meelaan waxaa loo joogay laga hadlo? war sidee arrintan looga baxa? sidee tiknolojiyadda maanta adduunka ku horumaray aan ku gaarnaa? waxaan loo baahan yahay in laga hadla taas waay. midda kale Somaliland nabad ay haysataa, wax dhibaataa kama jiraan, barwaaqo ay haysataa. so waxaa loo baahan yahay Soomaaliya inteeda kale inay ayada isa soo xaliso. markay isa soo xaliso kadib ayaa laga gaari karaa wixii oo wada hadal ah. markaas ayaa la iskugu iman karaa. laakiin dad aanan weli ayagaba toodii haysato oo maamul goboleedyadeenii anaga aan isku dhacsannahay, xal in laga raadiyo in dadkaas la soo celsho way adkaanaysaa, ayagoo ujeeda in dadkii goboladii kale ay dhibaato iyo barbaleem ay ka taagan tahay. waxaa loo baahan yahay in la fakaro, qabiilka laga fogaado, lana eego dowladaha horumaray iyo meelahay tiigsanayaan. maanta Kenyana damcaysa. haddaan kala qaybsanaan lahay miyayna damci lahayn? maya. so kala qayb iyo u tali waay sheekadeen. soomaalidii oo dhanne qabiil dalkayga xagama ku jiraa? maya. ugu kala wata meesha saasay maraysaa. marka looma baahno. waxaa loo baahan yahay in la heshiiyo, laisku soo dhawaado. maxaa la dhahaa, ummadda laysku keeno. sidii taas loogu talin lahaa waa inaad ku dadaashaan, falkeeda aad gashaan. Soomaali weyn meel walba aad joogtaan waxaa idin leeyahay nabadda ka shaqeeya. iska daaya qabiilkan iyo qurunka, hana la isku soo dhawaado, ummaddana ha la isku soo dhaweeyo. Somaliland barwaaqadii iyo nabadda ay haysatan ilaahay noo ziyaadiyo, annagana ilaahay nabad iyo barwaaqa hana siiyo. qabiilkane inaan isku garanno maahine iyo inaan isku layn. waxaana barnaamijkayga kusoo koobaya halkaas. waxaan idin leeyahay haddaad barnaamijyada aan soo dhigo ay idin xiise gelinayaan, waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe ka saartaan, like and comment, even waad share garay kartaan si asxaabtiina kale ay u arkaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.